deegaanka Bitaale oo dhaca waqooyi bari gobolka Mudug ayaa waxa tagay Gudoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiraxmaan Diiriye Isxal iyadoo tagitaanka Gudoomiyaha uu yahay si uga qayb galo Caleemasaarka Gudoomiyaha cusub ee deegaanka Bitaale Cabdi Aadan Cabdulle oo ay dhawaan doorteen dadka deegaanka Bitaale ugu horreyn munaasabada Caleemasaarku ay ka dhacaysay ayaa waxa halkaas ka hadlay Gudoomiyaha cusub ee deegaanka Bitaale Cabdi Aadan Cabdulle iyo ku-xigeenkiisa iyagoo sheegay in xilka loo igmaday ay ugu shaqeyn doonaan bulshada deegaanka Bitaale waxaan rabaa inaan u cadeeyo inaan ahay Gudoomiyaha Degmadda Bitaale Cabdi Aadan Cabdulle waxaan rabaa inaan idin sheego sida xaqiiqada anigu doorashadayda meesha lagu doortay ma ahayn in maaragtay aan dana aan leeyahay ku fulsado ma ahayn intaas aan idin cadeynaya waxaan rabaa hadduu Allah idino sida xaqiiqada oo xaqa oo Ilaahay nagu og yahay inaan degmada Bitaale bulshadeeda qaybeeda kala duwan inaan ku hogaamiyo waxaan kaloo aan rabaa inaan sheego sida dantiino ay ku jidho danta deegaanka ay ku jidho danta diintuna ay ku jidho waxaan ahayn anu ku nuxnuxsamayo dhanka kale isla goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ka soo qayb galay Caleemasaarka Gudoomiyaha cusub ee deegaanka Bitaale waxaan leeyahay Gudoomiyaha caawal Caleemasaarayo Cabdi Aadan Cabdulle hambalyo waxaan dhammaan inta yadan iskugu nimid ka soo qaybgalka doorasho Caleemasaarka Gudoomiyaha Degmadda Bitaale Cabdi Aadan Cabdulle ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray Gudoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiraxmaan Diiriye Isxal oo Gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa kula dardaarmay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nabadda deegaanka Bitaale waxaan meelinayaa bulshada deegaanka Bitaale ee isku taxalluujisay inay fursadan caawi ku caleemasaartaan Gudoomiyahooda cusub ayagana waa mahadcelinaya inta kadib maamulku waxa weeye waa wada shaqeyn ma aha in qof kaligiis wax wadi karo qof walba haduusan garbihiisa wadan ee uusan la shaqeyn asaguna uusan tixgelin shaqa ma soconayso waxaana waa gudoomiyuhu in gudoomiye ku-xigeenka ku xiran yahay ururka dhalinyarada ku xiran yahay ururka haweenka ku xiran yahay culamaa diinka ku xiran yahay hadduusan garbaha ka tago kaligiis buu noqonayaa mana shaqayn karo waxaan rabnaa maamulka cusub wada shaqayn baa naga dhaxaysa deegaanka Bitaale wixii baahi ah oo deegaanku soo gudbiyana inaan wax kala qabanno waajib bay nagu tahay asagana waxa laga rabaa waxaan maamulku gobolka ogeyn inaan meesha laga hirgelin nuucay rabtaa noqoto wada shaqaynta noocaas weeye Maxamed Muxiidiin Saxan Soxo Shabeelle TV Galkacyo